إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحن كجد جرني كتاب كني أها الأربعون النووية جارهان حديث كأفراد أيها شرع وقته إنه ودعي حديث كاس أفراد شريحي سأيا إنه دمنا inta aan sharaxa u gelin cashirkii shalay aan qaadanay ayaa wuxuu u baahan yahay kelimad si khada ah aan u iri oo sabqul lisaan ah inuusan qofku uusan ku lubin khada'aas markii aan sharaxaynay shalay wa kutubihi ilaahay kutubtiisa waa inuu qofku rumeeyo kutubtaas magacyadooda ayaan sheegnay injiil iyo tawraad iyo zabuur iyo alfurqaan oo kitaabkeenna ah iyo suxufi ibraahima wa muusa waxaa shalay marka carabku inooga dhacay khata kelimad ah oo ah kitaabka tawraad la yidhaha in la siiyey nebiyullaahi daawuud taasna sawaabkii ma ahan oo sawaabku waxa weeye tawraad waxaa la siiyey nebiyullaahi muusa calayhi salaam injiilna nebiyullaahi ciisa calayhi salaam zabuurna waxaa la siiyey nebiyullaahi daawuud suxufna waxaa la siiyey ibraahim nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi muusa taasna waa in la ogaado can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdullaahi ibni mascuud weeye kunyadiisa ayaa waxaa la yidhaha abi cabdiraxmaan radia allahu tacaala canhu allah raalli ka noqday qaala wuxuu yidhi xadatanaa waxaa inoo warramay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa rasuulka assaadiqu ou run sheegayo rasuulka almasduuqu loona soo run sheegay qaala nebigu wuxuu yidhi inna axadakum axadkiin axad adinka in ka mid ah yujmacu waa la kulminaa khalquhu abuuritaankiisa fii badni ummihi hooyadiis calooshiisa dhexdeeda 40 yowman 40 maalmood nudfatan dhacaan ayuu ahaan 40 maalmood waxa weeyaan minida qofka waxaa laga abuuraa hooyada iyo aabbaha minidooda markay kulmaan innaa khalaqna al-insaana min nudfatin amshaajin nabtaliih fajacalnaahu samiican basiira ayaa alla yidhi marka 40 maalmood waxay ahaanaysaa nudfa uma markaas kadib yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan xinjir dhiig ayuu isu bedeli midla daalika 40 kaas oo kale uma markaa kadib yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hilib ah midla daalika 40 kaas oo kale uma markaas kadib yursalu waa la diri ilayhi xaggiisa insaankaas waxaa loo diri 40 yowman uma markaa kadib yursalu waa la diri ilayhi insaankaas almalaku malagii baa loo diri malagaa loo diriyo malag waxa weeyaan almuwakkal birraxim raximka ayaa loo wakiishay fayanfuqu afuufi fiihi dhexdiisa arruuxa ruuxdii ayuu ku afuufi markaas malag wayumaru waa la amri bikatbi 4 kelimaatin 4 kelimo inuu qoro ayaa la amri ilaahay baa u yeerinaya
أفرتا كلمة أيو قري ملك بكتب رزقه أيو قري عبيتانكي أو عبي لهاي وحي أو عني لها ضمان مركز لقري وأجله أجشي سيا لقري وعمله عمل كيسين والقري وشقي وهو قف كاسي شقي إنه أهل النار يهي أيال لقري أو سعيد أما إنه أهل الجنة يهي فهو الذي عليه بانكو دارتي لا إله مثل عبده حق أو صنعهين غيره أصغى معهن عدكله لا إله مثل عبده حق أو صنعهين غيره أصغى وحنه غيره أصغى غير كيس إن أحدكم أحدكين لا يعمل عمل فليا بعمل أهل الجنة عمل أهل الجنة أيو سمين إياه عمل كأهل الجنة نوامحه الإيمان والعمل الصالح إيمان إيا عمل صالح وي حتى ما يكون إلى أوسن كأهان بينه الصغير وبينها جندي إلا ذراع ضد الماهن فيسبق وحا أسو دقدقي عليه دوشي سأل كتابك الله قري فيعمله عمل فالي بعمل أهل النار عمل أهل النار أيو سمينها النبي فيدخلها وقليا وإن أحدكم مدعدك إن كمدا لا يعمله عمل فالي بعمل أهل النار عمل أهل النار أيو سمينها أو عملك أهل النار كنا وحويان الكفر والمعاصي فيسبق وحا أسو دقدقيا وإن أحدكم أحدكين لا يعمله عمل فالي بعمل أهل النار حتى ما يكون إلى أوسن كأهان بينه الصغير وبينها نارتي إلا ذراع ضد الماهن فيسبق وحا أسو دقدقيا عليه دوشي سأل كتابك فيعمله عمل فليا مركز بعمل أهل الجنة عمل أهل الجنة أيو سمي فيدخلها وقليا رواه حديث وحا وريي البخاري أيا وريي ومسلم إمام مسلم وريي طيب مركا مراحل أيو إنسان كمريا أبور كيسو كو وحويا نطفة أيو أهان أفرتن كاس نطفة أيو أهان يا كدي وحو يسو بدلياه الله أو بدلياه علاقة حنجر ديق أدقوي أيا لو بدري مركا أفرتن كهوري أو أهان يا نطفة iyo afartanka dambe calaqada uu ahaanayo hadii uu soo noqdo oo mesela wixii ay soo dhacaan oo dhiigii mesela uu iska soo daato waxa weeyaan gabadhii waxaba maaragtay la dhihi maayo gabadhani waa gabar dhashay haday cidda tirsanayso ciddadeedu waa dhamaatay la dhihi maayo wax ahkaama oo ku tacalluqa ma jiro calaqada iyo nutfada إما هدو مضغة جارو أو سديتا يدور هدي أو جارو أو عد أو نغضو مركز وحويان أحكامها كنت تعلقيس أو إسلامتي هدي مضغة هدي صالة وطو مثلا أي صال نغطو أي صال نعضو وحويان مركز كواد هدي عدة كجرتي عدة دي هالكاس أو أكتاي وحويان صلاتنا تكميس وإسلام حيث كل عي أو كلاوي إسلام رشي أو كلا الله اعتبارنا طيب بقول يا لواتن هدي أو جارو عنقي نفع الوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله ملك أصدراي ملك قاسي مركع نفتي أيوك عفوفي بقول يا لواتن عنقي هدي أو جارو مضغة أيضا أحكام يسان لهين وحي يسان لهين عدكاسو هدو صوردع الصلاة بقوتو كماي لما كفاني ماي مغعنا الله بحي ماي والإسكاعس لكن بقول إيا اللواتن هدي أو جارو
cunugii oo suuro loo yeelo waxa weeyaan mas'ala oo waxa weeyaan ahli cilmigu badana ay isku khilaafaan laakiin qowlka raajixa ah oo Abdullah ibn Umar iyo ay ku tageen iyo qeyrkiisba waxa weeyaan in la dhaqayo la karfanayo lagu tukanayo magacna loo bixinayo qowlka ugu saxiixsan waa qowlkaas mar haddii uu gaaray 120 hadduu gaaray طيب marka dadkii afar weey afara dadkii loo qaybiyay qof waxa weeyaan oo u qoran yahay xaq alla waxa uga qoran ahlu naar inuu yahay ahlu naarnimadiisii ku socona adduunka asoo ahlu naar ka taga kufrigii iyo wixii asoo sidii u wada ayuu ku tagay kaas qofna waxa weeyaan xaq alla waxa looga qoray inuu ahlu janno yahay amalkii ahlu jannahu sameeynaya ilaa u geeriyood labada qolo kale waa qolo Allah agtiisa waxa uga qoran inuu ahlu naar yahay markaas wuxuu sameeynaa amalkii ahlu jannaha amalkaas wadi sida daahirka ah oo riwaayo kala soo aroortay fa ya'malu bi'amali ahli janna fima yabdu lin-nas dadka sida u muuqata daahirka nin wanaagsan waa laakiin aakhiru hayatihi ayu isgadina qofki fa ya'malu bi'amali ahli naar sameeyna daqiiqadaha aakhirkii waxa laga yaabaa in noloshiisa laba maalmood ay uga hartay markaas uu isbedeli qofkii fa ya'malu bi'amali ahli naar fayadkhulha markaas uu galay kitaabkii loo qoray u soo degdegay taasi waxa weeyaan waa naadir weey laakiin waxa badan qofku inuu xaq alla waxa uga qoran ahlu janna inuu yahay markaas wuxuu sameeynaa amal ahlu naar waa iska galba dunida intuu joogay aakhiru hayati ayuu tawxiidka qiri markaas uu sida jannada ku gali waa toobad keeni haduu ahlu macsi aha jannadu sida ku gali adoo gaal ahaayo dunida oo gaalnimo ku joogayna gaalnimadii uu ka oo tawxiidka uu qiri islaamku soo gali sidaas uu ku galiya jannada ilaahay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waad garanaysaan waxa uu yimid nin gaashaankiisa iyo alaabtiisa wata markaas rasuulka ilaahay ma dagaalkan gala masawaa aan muslima markaas nabigu yiri aslim kuma qaatil islaam kadibna dagaalan ninkaas tawxiidka uu qiray daqiiqada yar uu dagaalamay nabiga lagu yeero sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay waa kana ninkii ma salaad ma tukan sakama bixin wax yar ayuu nabigu waa soo dul istaagay markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam amila qalila wa ujra kathira ilaahay uma sujuudin hal marnaba tayib marka xadiiskaasna halkaas aan ugu gudbaynaa الحديث الخامس حديث كشنات عن أم المؤمنين مؤمنين تهويد أيها لغا وريي أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت وحي ترى عائشة قال رسول الله رسولك على وحي صلى الله عليه وسلم من أحدث قفك كسو الدرية في أمرنا أمر كنغا هذا كان ما شيء ليس منه عن كمده دينك فهو أي المحدث كالسو الدرية رد مردود ومل عليني وفي رواية لمسلم وحاكسرنا كاس بخاري مسلم أوريه من عمل قفك عمل فلا عمل كاسو ليس أوصن أهين عليه دشيسا أمرنا أنك أمر كنك وفهو أي العمل وعمل كاس رد ومثله عليني لا أقبل معي غير مقبول وي حديث كان حديث آد وين واي سيدا ابن دقيق العيد بكتاب كيس أو كيري هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وحويري وحديث كان وقاعدة عظيمة وآد وين ومن قواعد الدين دين كقواعد سكمدة وهو من جوامع الكلم حديث كان وحو كمدة هاي
nebiga sala allahu calay wasalam kelimooyinkii la siiyey oo macaanida faraha badnaay aruurinayey oo nebiga la siiyey sala allahu calay wasalam xadiidkani waa xadiid aad iyo aad u muhim ah nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axdatha qofka soo dariya fii amrinaa amarkeennan diinka laga wadaa oo haadaa kan ah maa shay qofka ku soo dariya shaygaasoo laysa aan ka mid ahayn minhu diinkii fa huwa ayilmuxdathu ka la soo dariyey waa la celin ayilmarduud wey رواه حديث كاس وحوري البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم وحكسنا من عمل قفك عمل فلا عمل كاسو ليس أوصنهين عليه دشيسا أمرنا أنك أمرك أنك فهو أيل عمل كاس رد مردود من العلن يوي حديث كان وحو كهالليا وح الله لئي وحيابها بدعدة وح الله لئي وحيابها النبي محمد وحي عن الله ضيان صلى الله عليه وسلم إني إبريهين وحو عضينا يا حديث كان على إبطال جميع العقود الممنوعة سيدة ابن دقيق العيد بكتاب كسأو كلية وحو كهالله يا حديث كاني وح الله لئي وحي دينك اللي صدره حتى وحو كهالله على إبطال جميع العقود الممنوعة إلا برنا عقود أمه الشيسية ضمان باطل كأه inuusan asixayn oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisa waxa dhacay nin ayaa wiilkiis ayaa nin kale u shaqeynayay shaqaalo ahaa xaaskiisii marka ayuu u galmooday xaaskii ninkii guriga shaqaal ka ahaa ayuu xaaskiisii u galmooday tayib odaygu wiilkii dhalay arintii uu maqlay wiilkiisii inuu zina ku dhacay waa soo tagay wuxuu u yimid ninkii islaanta qabay u yimid ni waa maqdada marka mas'alada u dhaamay oo si kale ugu jawaabay waxay dhaheen wiilkaada dhagaxa lagu dilaa mana ahe boqol karbaasho laha wiil guur hore uma soo marin tayib odaygu waa tagay wuxuu u tagay ninkii islaanta qabay u tagay waxaan rabaa inay asturtid oo wiilkayga waxba aadan sheegin boqol kan neefna qaado adoonna waa awsiiyey boqol neefna waa siiyey adoonna waa awsiiyey shibaa la iska yiri bis ninkii markii dambe mas'aladii ogaaday qolaas si sax uga waranto waxa la wiilkaada dil ma lehe boqol karbaasho leey ninkan boqolka neef aasiisana asaga islaam la'aan ku dhace oo islaantiisu waa la dilaa xayla ay guuray soo martay مسألة أوغادة بس ويلكيس إنه سندلهين نبي محمد صلى الله عليه وسلم ساسا بعد النبي الله وقال ناف نواب بحي أضار نواسي واحد من حدود الله يوكاقنا حدا الويا شيء مركب أقارب نبي واحد ويلكا بقال جايدر ولي بقال كين ناف يأضانتين على أسكنه طيب مركب نكاح أصلا waxa weeyaan haddoosan saxiix ahayn asna waxa weeyaan waa la burina nikaax haddoosan saxiix ahayn waa la burinaya wax allaale iyo waxyaabaha bidacda ah xadiidkaana u daliil ah ina la aqbalin diinka lagu soo dariyay marka dad mucaanidiinaha jiro ayagu diinka ilaahay aan waxa u aabayeelay diin fiirima wuxuu leeyahay adiga bidca sheegaye saacadan aawadatid waa bidco nabi maxamed ma joogin gaariga aad ku socotid waa bidco guriyahan waxa weeyaan dheer waa bidco shaatigan quruxda badan iyo waxaan waxa weey nabi maxamed ma joog hay bidca aad sheegay adiga bidca ku soo saacada oo nabi maxamed ma ogeyn kaas marka waa inaad iska ogaatid waa ninkaas wuxuu isaga ka dara laba arin amru diin iyo amru dunya arintii diinta حديث كان وحو كهالله أرمها الدين تكهالله حلو سو دري أو عبادات الساعات يوح كهالله معي أو النبي صلى الله عليه وسلم ما كمر كوكي جنود أو النبي مدينة أو تغي أي النبي وحو أركي عليه الصلاة والسلام تذكر مدينة وحيعان كوي بارو باريه النبي وحو أركي أيوه
ta'biir wax la yiraahdo sameynaayo bacrimin oo midalan bacrimintu waxa weeyaan beerta qofka dadka iska laha yaqaan beeralayda geedu waxay u qaybsamaan mudakkar iyo muannas kaas mudakkarka ah oo labka ah ubixiisa la soo jara kan muannaska ah la saari ubixiis markaas oo bacrimin oo sida ku dhali markaas nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam tala ahaan haddaad iska daynahaydeen diiniyan iyo wixii ilaahay waxay nabigu ma dhihin ee nabi wuxuu ku yiri haddaad iska daynahaydeen bacrimintan waa idin bixi lahaa sidii yeelay reer Madiino wax baxrimana ma aysan sameyn beerihi waa bixi waayay intii yarada la bacrimin ma intii kale waa bixi diid nabiga loo yiri sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay sidaana dhacdo wixii la bacrimin ma ahan wixii kale waa bixi diideen markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum antum adinka ayaa a'lamu iiga ogaal badan bi umuri dunyakum adduunyadiina arrimaheeda adinka iiga aqoon badan sidaas nabiga sallallahu alayhi wasallam umurihi adduunyada nabigu ayagu u tiiriyay laakiin diinka amruna nabigu sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha marka waa inaad ogaatid aslul ibada maxaa asal u ah aslul ibada waa xaraam wax allaale iyo waxa nabigu la imaanin aslul ibada maxaa asal waa xaraam ninkii ku yiraahdo marka ibadadan waa banaan tahay ninna wuxuu yiri ma banaana yaa daliil looga baahan yahay kadhahayo waa banaan tahay daliil laga rabaa لحيل أصل العبادة وحرام نبي محمد وحو صلى الله إيمان معنا نبي محمد وحي أولي يمد كحلال عبادة أو بنان وح الله عليه وح النبي محمد لا إيمان وبدع وعبادة وقت يوكالون حديث كان كالله مركع أصل العبادة وحرام لكن أصل الدنيا الدنيا أصل كده ومباح نحاول الدليل إن مباحتها أصلك الدنيا الله وحده تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله وامدك إذين أبوري وح الله لأيه وح دلك الصار ما في الأرض جميعا وح الله لأيه وح دلك الصار أيضا سوحي عدينه إن البني آدم كحلال أطهي وحي لغا حارم تنميه معه من أمرك الشيء أو كير شيء لو وقف أسكوه يستقفوا عليه وحلال قفنا وحرام شيء معويه هو شيء الدنيا أصل كيسوا مباح قف كده هو حرام دليل كان لليه هذا صمد شيء الدنيا وحرام دليل كان الأصل مباح ويه عبادة واسدة سويه من أحدث النبي وحي قفك سودرية في أمرنا أمر كان هذا كان ما شيء ليس أوصان أهين منه دينك أن كمل أهين فهو أي المحدث كلا سودر يرد أي مردود من العلن يوي ولا أقبله رواه حديث وحوري البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم وحقصوا من عمل قفك عمل فلا عمل كاسو ليس أوصنه عليه دوشي سأمرنا عمر كنغا فهو أي العمل عمل كاس رد مردود من العلن يوي طيب ضدع وحي جرادان قفك بعمل بدعاه السمينة كاسا waxa la leeyahay ruuxan bidcada ma iska deeyso nabi maxamed wuxuu man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd wuxuu ku leeyahay nabi maxamed wuxuu diiday man ahdatha qofkii aanu soo dirin bidcada aanu ma keenin qarnigii hebel iyo hebel bilaaw qarnigii toddobaad bilaaw intaas oo dada iga horeyso aniga nabi maxamed wuxuu diiday man ahdatha qofkii soo aanu waxa kuma dirin dadku dhaqmaaya arkay waxa la leeyahay qofkaas riwaayadan kala dalfiiri riwaayadan nas tan meelo ka gala male man amila qofka amal fal adu hadaarta keenin qolo kala keentay laakiin adiga man amila qofka amal fal amal kaasoo leeysa awsan ahayn calayhi dushiisa amruna anaga amarkanaga فهو أي العمل kaas rad wal cilina oo qofna asaga wixii diinka ku soo biiriyay qofna waa ku amal falay labaduba waxa weeyaan amalkoodu waa la celinaya waa غير ma waxan la aqbalin
عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي أو عبادتي وحال الربا عبادة كيفية النبي قابك إلا وغضيده قابك عبادة وعبادة كيفية أهان شيء النبي أو قابك وقبت قاب عن أهين هدي الله سميه بدعو نقنا عبادة أي النبي وقت أسميه حداد مطلق كدكتوا بدعو عبادة مطلقة حداد مقيد كدكتت أيضنا وحي نقوم بدعو مكان حداد النبي عبادة أوصل مكان قارة أوصل أقيدين حداد مكان قارة أقيدين بدعوة مثال عن قصية سادو فانت وحاد عضي حلقي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي نولايين أيها مساجد أيها نمنا كل مي روح حلقة أفريستين نينا مركب ماشي أصفردية مركب سوح اللي هي كبروا 100 فقال الله أكبر سوريدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وقال سوريدا مركب سولية هي سبحوا 100 فقال مر سبحان الله ده سوريدا سبحان الله سبحان الله سبحان الله إيش أنا أفردية هللوا 100 فقال لا إله إلا سوريدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هل كانوا أفردية طيحان لو أطيرنا وحلقي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مالك دلتين والله السمايات ده صلاة الصبح مركي ميلاد دروق الدقنته صلاة الصبح مركي لابد بحي صلاة دلت سوري ده تنقل ولا سوري ده سبحان الله أرنت وحا أركي أبو موسى الأشعري وصحابة النبي كمل صلى الله عليه وسلم علماء واوين وصحابة أيو كميديا وأو أحكي بس شبه كيري صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أتي حاجة لصحابة وأس احترام جرين عبد الله بن مسعود وهو وكعلم بضناع وأتي مركز سوحي وكرياء أبا عبد الرحمن ما يقولوا يسيو أيو آل صلاة الصباح انت على السوء آذين إيهاد قولوا يسيو وحي وتغي ضد بضنا إيلوبين ضد عبد الله بن مسعود قولوا يسورتي سيتاغين وحي روان عبد الله يسوء أيان مساجدك iyo gurigiisa inta u dhaxaysan cilmi ka faa'iideystaan guriga hor dhaway markaas uu yiri warma soo baxay Abu Abdurrahman kaas ee maya meeshii ku soo Abdullah ibn Mas'ud oo soo baxay Abdullah wuxuu yiri maanta waxaan arkay oo yiri arrin yaab badan nin tirinaayo tasbiixdi oo dhahaya sabbihu 100 kabbiru 100 hallilu 100 oo dadkii ay turtuurayaan la tirinaayo markaas uu maxaad u dhihi weysay xasanaadka ana idin ballan qaaday inuu soo inkalumayne sayi'aadkiina xisaabiyo maxaad u dhihi weysay markaas uu haddaad nooshay adigu waa arki doontaa Abdullah ibn Mas'ud waa soo hagoogtay hayla wuxuu ka baqayaa inay ka kala cararaan nin weyn oo caalimo ah haday arkaan marka waa soo hagoogtay ay soo qariyo xilqadii oo soo fariisto ninkaana meesha u fadhiyo wuxuu leeyahay kabiru 100 Abdullah oo fadhiyo سبحوا 100 هللوا 100 أو كهيا إيه وطورايا صار مشوا فديه مركز اسكا قاعد يقول فيدي هقولتي اسكا قاعد مركز وعويل يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم والأمة النبي محمد المحدد الجي هلاقيني هيته وحام هؤلاء كواني أصحاب نبيكم نبي إن الصحابة وكوانا متوافرون وقوة ما يسترون بلل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ثيابه تنوى النبي دركيسي لم تبلع ما أيسن بالي يوم وآنيته ولش النبي محلواتا لم تكسر وليلا ما ججبين ما يسن ججبين والذي نفسي بيده وضعت الله النفتي وقعنتي سكجرتان قدارتي إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أذيك واحد كسوانتين دين كهنون بلن أو كتوصا دينتي النبي محمد أو مفتح باب الضلالة أما واحد تين كوفري الباب كبعض الله سميته
nebi maxamed diintiisii diin ka hanuun badan oo ka wanaagsan inaad haysataan iyo inaad albaabkii baadida inaad furteen labadaas mid weyn nebi maxamed madiin waxa weeyaan ka hanuun badan baa jirta ama albaabkii baadida furteen weey marka nabiga sallallahu alayhi markaasay waxay dhaheen ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhayr khayr ma ahna wax kale wallahi ula jeedin waxaan khayra u jeedin markaasuu wuxuu yiri wa kam min muridin lil khayr lam yusib hada aad u qiimo badan waa wa kam min muridin badan nin doonaya lil khayr khayr lam yusib ana asib badan nin badan oo isla khayraad ku taagan tahay aan khayrkii asibin nimankaas maxay sameeyeen tasbiixda si fiican u dhawaaqay subhanallah subhanallah allahu akbar laakiin maxaa ku jira xilqa inta la sameeyay yiraahdo inuu soo rida iyo in la tiriyo in la qaato dhagaxyo tayib ahlu cilmiga afarta madhabood waxay isla ogol yihiin hadrada qolooyinka duruqdaahu ay qaadaan inay baadil tahay afarta madhabood isla ogol yihiin inta meel la isugu yimaado la hadreeyo illa allah la ilaha illa allah illa allah la ilaha illa allah tisiiba ku uran wara quraankayba ku cayaaran markay hadreeyaan quraankay ku cayaaran habalila quraankay kamita hadu yiri ma taqaan ya halayooda wa'tasimu bihablillah habalila qofka qaariya haduu ma yaqaan waxaan quraanka ilaahay oo ahriyo kala hadreynaayo afarta madhaboodba فتوحات الإلهية صلى قدمي أو كسر نقلين كتاب فتوحات الإلهية كتاب كليلة أفرت مذهبين إسلام قليين حضرات الصوري أبا دلته وحصلنا السنة مركا محل الديدي كيفية نبي وعمل كان سيدا أوقف إنا للقيدين كيفية نبي إلا وضع صلى الله عليه وسلم حلمت مكان النبي وعبادة أقيدين هدي الله قيد حد عليه حلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سوى حجك الصحابة بدن كسر صلاة الله صعدة أيو صلاة الصبح ميل أو كنت جي عمر بن الخطاب مركز وحو أركي الصحابة سي صعد كوا إنتسك سي صعدة ميل كلا كسو تكرهوا مركز المحيين دادكاس سي صعدة مركز وحالي العمرو وحويان نبي الله أيام ميشان مري marka inta xajka u socday meel uu ku tukaday salaadii ayay rabaan inay ku tukadaan markaas wuxuu yiri inma halaka man kana qablakum bi ashbahi hadi waxa halaagay dadka adinka in ka horeeyay waxaas iyo wixii lamid ah bi ashbahi hadi maxaa yeelay yattabi'una athara anbiya'ihim fattakhaduha kana'isa wa bi'a waxay barakaysan jireen raadadkii aasaartii anbiyadooda markaas waxay ka dhisi jireen masaajid iyo waxa weeyaan biya ayay ka dhigi jireen kanaa'is iyo biyacyo ayay ka dhigi jireen ayaduna waxa xaraan ah meel nabiga maxamed kaleey salaatu wasalaam makaan awsan cibaado awsan u qaydin ina adigu salaadii inta la fiirsatid salaada meesha kugu haleesho waa ku tukanay tayib waxaan kaloo la ogolayn wax nabigu عبادة أوصن وقت أيين أو عبادة مطلقة إن هذا وقت أيش وبدعة أيضا مثال عن قصية سادو فانت صدقة والد كاوا قادمتي والد كوا أجريود صدقة أبيع عندكو دين ماله ما أنت هذا الشيء وحارت أبيع والد كصدقين لكن صدقة دي وقت أيش وما أنت هذا هيدنتي وما أنت حس جرني ها شريه ولا سكان يجيء جاء عبادة النبي مع الوقت مويا مايا كتر ما أنت ده شو اسكبه وبدعة هذا وقت ويشو صدقه مركز شو أود اسكبه طيب الحديث السادس حديث كاللحاد مروي وحى لجوري
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أبي عبد الله أيال الأول وكن يضا النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وحده سمعت رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه إن الحلال حلاش بين وأي عضهي وإن الحرام حرامتنا بين وعضهي وبينهما لحدود وحا هذا حرام إيا حلال أمور أرمها سو مشتبهات سؤائك الشبهية أرمها سو لا يعلمهن أو سنقرنين كثير إنبضا أو من الناس ذاتك كمدة وذلك كاسنا كالراعي وكي إلالي أو كالحولها كالراعي إلاليه أو كالوي أو يرعى إلالي حوله كو إلالي حول الحمى وستري إن الحلال حلاش بين وعضهي وإن الحرام حرامتنا بين وعضهي وبينهما دحدود وحا هذا أمور أرمها صو مشتبهات سؤائك أو استشبهية أرمها صو لا يعلمهن أو سنقرنين كثير إنبضا أو من الناس ذاتك كمدة نبي محمد مركا وحو يري فمن اتقى الشبهات قفك إسكا إلالية الشبهات شبهوينك وحيابها حرامية حلال مية أن لقرنين الشبهات كأه فقد استبرأ وحو أبري دلبي لدينه دين كيسي إيا وعرضه عرضيس فقد استبرأ وحو براء دلبي لدينه دينتيس إيا وعرضه شرفتيس ومن وقع قفك كردعه في الشبهات وحيابها شبهات كأه وقع وحو كردعه في الحرام حرامت أيو كردعه وذلك كالراعي كي إلاليني أو كلوي حولها إلاليني أو يرعى إلاليني حوله كو إلاليني حول الحمى سيرها حراره ملها أدو يوشك وصودك دقي يوشك وحسودك دقي أن يرتع إنو ضاقه بمعنى أي الماشي حوله أو إلاليني فيه في الحمى سيرمه ماشي حرامته إلا الضاجيه ألا براروغا وإن لكل ملك ملك استوحى أسونا على حمى سيره ألا هو براروغا وإن حمى الله إلهي سيريسا محارمه وحيابها أو حرام يلوي ألا براروغا وإن في الجسد جسد كدحدي سوحى هذا مضغة عذهلبة إذا صلحت حدي صوبته أو أي وناكسناته صلح الجسد جسدك وناكسنانا كله دمانتيس وإذا فسدت هدي فسهاده فسد الجسد جسدك وفسهاده كله دمانتيس ألا هو يبراروغا وهي أيضنا القلب ووضنه حديث كرينا وحديث آد وين أو حويان من قواعد الإسلام كمدة أرمها دم سدح يا الله قيبيا شيء وحويان حرام شيء حرام oo xalaalnimadiisu ay daliil ay ku cadahay kaas waxa lagu adoonsaday inaad ka tagto oo aadan u dhawaan shayna waxa weeyaan waa shay xalaal xalaalnimadiisuna ay cadahay oo daliil ay ku cadahay shayna waxa weeyaan xalaalnimadiisuna ma cadda xaraamnimadiisuna ma cadda إن وحويان اشتباهات نوحا كينا لبا أيا كينا حاجة تشبيه وحا كينا لبا من حيث الدليل إنه كيماد اشتباهات أما من حيث الدلالة إنه كيماد من حيث الدليل وكيمده مثلا حديث خصوة أراري مسألة دان حديث كاس أهل العلم قاركود واضعيفين أهل العلم قاركود نوات الصحيحية محايد المركة أرن أو شبه أما من حيث الدلالة حديثك هو صحيح أرنتان ما تصيح حديثك على سكويستان اشتباه قفك وحا أكينا أفر أرن سيدا أولياء إذين دقيو الشيخ محمد صالح عثيمين
قلة العلم علم يري قف كان إنه قف علم يري وهو طالب وعلم يري وحان حال لماذا حرمته مؤجة قلة العلم أما قلة الفهم فهم يري دينك واحد بلان وكيقان لكن فهم كيايا كتب بلان وآخرستي وحويان صحيحينك وآخرستي واحد بلان دينك واقع لكن فهم كيايا دليلك أسوه يقان أيوسا مدلولك ساري كريم فهم كيسا إسكيا لو التقصير في التدبر ومسألة السدحات واشتباهها كانت التقصير في التدبر أصوه إنه كقاضية إنه فيرفيرية مسألة بحثية أود وأوليه هي عربية دي ويقانا علمي إن كفلا واهايا التقصير في التدبر هاي ما هو فيرين هاي أصوه ووحيابها اشتباهها كان التقصير في التدبر مسألة أفراد واشتباهها كانت وهو أعظمها أو يريد وهو أدك وقدر قوي سوء القصد وجيد حمو علمي وحو لا آدي وجيد حمو مسألة فرأى سوح وعقيدي حلال وا دينك مركو رادينايو وحو رادينا وحو حلالي مسألة أصل كحكم كان رادينا سغا وحو عقيدي نفتيسا إنه شيء عن حلاليه وانا حرام وحو رادينا دينك إلهي كرادينا وحو حلالي دينك إلهي لغسو هلما وحو كحرام ندور رادينا وسوء القصد أما وحويان وحو عقيدي شيء عن إنه حرام أدلة كستا أو فيريا وحو رادينا وحي حرام تنمي لها من السوء هلاي شيء عن أصل كي صحوه في سقفك الدور رادي واهلا لكن سوء القصد جد حما جرت طيب الشيخ محمد صالح عثيمين وحو ليه واجي هوري وحيابها مشتبهات كأه سيارك أو كلا أيها كم إذا مشتبهات وواجي سيارك أو صوب باللاوضي أيها علماء قارده وحان قيق واي دب مله علماء قارده واجي ضمبه وحا عضاتي إنه حرام يا سيارك معهن واحد متشبهات كمد معهن مشتبهاتك كمد معهن سيارك محايلي علماء وحوي قاعدة جرته وعلماء أي كقاطين آيات قرآن علماء وحي ليه ما كثر ضرره على نفعه فهو حرام قاعدة أسكقر ما كثر ضرره وحي أو بطء إفكيس على نفعه فهو حرام شيء عريا دي كلمات سيجارة نفع له يا كيناي سيجارة بل اسكدا نفع إنه ليه هي الصيغة تنبأ لبوي وضنه قفك مذوبية سنة كيبا كمانانا أدمتي دهان تقاترت بالكاس وظهل دلاي أهوى قفك كدها يمرك السيجار ومجتبه وقف أصوه فدنا يسوه ما داروا إنه فدني محمد بن صالح عثيمين وحل ويديه من أياه وحويان والسيجاريات سيجارك وعذا وأنا قاري قرآن كافر توكل بقولك ويقع سيجار كان وعذا لأنه جرحير وجرك وحير القرآن كان ويقع وما دعيت كانوا تجسوا لواي كانوا سيجارك وعذا كان له جرك وحيرم أما واقع الصلاة ضمن واحد هذا يفتح أو يرو تعطى ضمان وحرام جركان إن تجاب سيدنا وحرام إن أتصلك كجرتنا وحرام كتاب كني الكبائر انفسه شرح من سلادس يا صلاة بحنا يالي كسيار كعبا صلاة بحايوي حدعي كان واب مجاهد مع سيدي سوى الجهرة كان قرك حيري قف كاستمركوا أركو إنا لله وإنا إليه قرك يا حيري محايالي قرك إن الله حيرين بخاري يا موسى الصحيحين كي كنت على مسألة اشتباه قلي قلت معها قرك إن الله حيرين قر حيري حقا تقال لي صلاة ما يبحين أرنغت هذا بالجهري مع سيدي بالجهري قف كاستمركوا أركو لكن إن كان سيارك أوحو ليه سيارك عبية سيارك
waxa weeyaan xaaladda uu cadaayo bisaal arkaya dad iska bixiyo la fahmo mujaahid waa yahay xaaladda oo waxa way cadayo oo meelaha la soo dhuumanayo laakiin ninkaan qof kasta oo muslim oo arko wuxuu arkaya inuu ninkaan nin sunnadii nabiga ku tuntay inuu yahay marka garka waa in la daayo waa in laga cararin garkaas ilaahay ku bixiyay sunnadii nabiga ilaahay ku caad gaalan ka cabsaa iyo hadhiin garkaas waxa weeyaan waa cibaadada dayso nabi maxamed hala daayo yiri طيب إن الحلال حلاش بين وعضها وإن الحرام حرامتنا بين وعضها وبينهما دحدود وحا هذا أمور أرمها سو مشتبهات سوءك أرمها سو لا يعلمهن أو سنجرني كثير إن بدن أو من الناس ذاتك كمدا فمن اتقى الشبهات قفك إسكا إلاليا الشبهات وحيابها الشبهات كأه فقد استبرأ وحو براء الضلبي لدينه دين كيسية وعرضه شرفتيسة ومن وقع قفك كدعا في الشبهات وحيابها الشبهات كأه وقع ودعي في الحرام حرامت أيو كدعي وذلك كالراعي كي إلالينا يأكلوي حولها إلالي أرجر كيوي أو يرعى إلالينا حوله كو إلالينا حول الحمى سيرها حريره هذا يوشك وحا سودك دقيا أن يرتع إنو ضاغو الماشي وحوله فيه في الحمى سيره ماشي عن الأقل ضاغو على هوية براروغا وإن لكل ملك استوحى أصرناضي حمى سيرا أي أصرناضي على براروغا وإن حمى الله إلهي سيريسو محارمه وحيابها أو حرام يلوي على براروغا وإن في جسد كدحي سوحى هذا مضغة عاده لبأه إذا صلاحت هذي صوبته صلاح جسد كوا صوبنانا كله دمانتيس وإذا فسدت هذي فسد جسد كوا فساد كله دمانتيس على هوي براروغا وهي أيضا القلب وقلبه حمنتاس وقلبه حمنتاس هذي قفك أوهاكتو جسد كي صدوا وهلاي أعماشي سايا هلايس لوهي ساهلايا إنديه ساهلايا gacmaha hagaagaya qalbigiisa waxa weeyaan haduu nuur ku jiro waxa soo dhan waa ay u hagaagayaan intaas ayuu darsigu ku og yahay Allah subhanahu wa ta'ala alam sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi